salaamullaahi calaykum saaxiibada ilay soo dhowaada waxaan idiin soo gudbinayaa maanta astaamo lagu garto qofka ku jecel sida la og yahayba wejiga iyo xubnaha jirka intooda kale ayaa ah astaan lagu garan karo waxa dhex yaala qalbiga qofka haddii gabari nin jeceshahay ama nin gabar jecel yahay waxaa lagu arkaa astaamahan ama calaamadahan soo socda kow xasuus badan mar kasta inaad niyadda ku haysid oo aadan ka saarin karin oo aad ku mashquulsan tahay labo inaad ka sheekayso qofka aad jeceshahay mar weliba waxaad rabtaa inaad xusto wax walba oo wanaaggiisana aad sheegto aadna difaacdo haddii waxun laga sheego saddex in si xoog ah wadnahaagu u shaqeeyo marka aad si kedis ah ku aragto qofka aad jeceshahay afar marka aad u socoto kulankiisa waxaad dareemaysaa firfircooni siyaado ah marka aad ka soo tegaysidna waxaad dareemaysaa culays iyo tiiraanyo iyo cagajiid shan qofka ku jecel si rasmi ah kuma fiirin karo fiirintana wuu kugu xadayaa marka aad dhinac kale eegtana aad buu kuu fiiriyaa lix wax kasta oo aad necab tahay waa uu ka fogaanayaa qofka ku jecel adiga oo aan weliba dhihin ka fogow toddobo dadka adiga aad jeceshahayna wuxuu jecel yahay inuu ixtiraamo waxa aad jeceshahayna inuu jeclaado ayuu jecel yahay mar weliba waxaa la sheegay nin ayaa gabar jeclaa deris ayayna ahaayeen maalin kasta waxa ay garaaci jirtay mooye ma garanaysaa mooye waa kan badarka lagu tumo ama xitaa waxaadba garanaysaa mooyihii yaraa ee xawaashka lagu tumi jiray waxaan la hadlayaa gabdhaha cuntada kariya aan sheekada u noqonnay markii uu dhintay gurigiisa waxaa laga helay 40 mooye sababta ma garanaysaa sababtoo ah gabadhii uu jeclaa ayaa mooyaha garaaci jirtay sidaa darteed ayuu isaguna mooyayaal badan guriga u soo dhoobay mid kale ayaa la weydiiyey waxaa lagu yidhi qorraxda ka waran iftiinkeeda markaas ayuu yidhi marka ay heblaayo wuxuu sheegay magacii gabadhii uu jeclaa markii ay heblaayo gurigeeda qabato ayay aad u iftiin badan tahay hadda waad fahantay soo maaha astaamaha iyo calaamadaha qofka ku jecel u kaadi kuwan waxay ahaayeen astaamaha lagu garto qofku jecel gabar yahay waxaan kuu raacinayaa ninka sida dhabta ah kuu jecel astaamahaad ku garan karto ninka ku jecel sida lagu ogaado run ahaantii way fara badan yihiin balse waxaa jira astaamo aasaas u ah in lagu ogaado ninka ku jecel si dhaba iyo midka kale aan jacaylkiisu dhaafsiisanayn afka oo keliya haddaba ninka sida dhabta kuu jecel astaamahan ayaad ku arki doontaa ee ogow kow waqti kugu filan ayuu ku siiyaa xitaa haddii uu aad u mashquulsan yahay waayo qof si dhab loo jecel yahay lagama mashquulo duruuf kastoo lagu jiro labo shukaansigiisu hore u socod ayuu leeyahay ee habeen kasta meeshii xalay ma taagna saddex hadallada uu kuu adeegsanayo waa kuwo ay ku dheehan yihiin anshax iyo usluub si uu u ilaaliyo sharaftaada afar marka uu kuu sheekaynayo hadalladiisa way xadidan yihiin oo kama helaysid been kala hadlid iyo faan shan markii aad isku dhacdaan wuu ku dejiyaa xitaa haddii aad adigu qaladka lahayd lix kama dhargo sheekadaada wakhtigaagana xisaabin maayo mana dareemaayo caajis iyo wixii la mida mar kasta wuxuu isleeyahay may wax yar kula sii joogto toddobo arrin kasta oo uu kaa codsado haddii aad ka cagajiiddo kuguma cadaadinayo waayo waxaa intaas ugala weyn jacaylka uu kuu qabo sideed farxaddiisa wuxuu ka hormariyaa taada waayo adiga farxaddaada ayaa ugala qiimo badantiisa sagaal wax kasta oo aad jeceshahay ayuu kula jecel yahay maxaa yeelay qalbigiisa dhankaaga ayuu u soo janjeeraa toban farxadda iyo murugadaba waa mid kula qaybsada waana mid mar kastaba wanaag kula garab taagan hadda waad garatay soo maahan astaamaha ninka sida dhabta ah kuu jecel waxaan kuu rajaynayaa inaad noqoto qof la jecel yahay oo aan weligii la nicin maca asalaama